270 qof oo isugu jira dhalinyaro waayeel ayaa dhalay ku ciidaan loogu qiibiyay Ciidul Fidriga madrasada Daha ee magaalada Baydhabo. Sheekh Cabdi Fataax Xasan iyo waliba Sheekh Aadan Sheekh Saciid oo kamid ah culimada diinka magaalada Baydhabo ayaa ka hadlay wanaaga ay leedahay in bulshada ay is saacido dhexdeeda isla mar ahaantaana la badiyo maxfalada caynkan oo kala ah dhalinyarada iyo waayeelada loogu gargaarayo. Bismillahirrahmanirrahim. Geedka oo maalin isniinee 29 Ramadaan oo 440 oo ka beegan 8 lixaad 49 Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta qaybaro madrasada Daha ee magaalada Baydhabo Janaay qayb la fiiriyay isbuucde saayimiintii Ramadaanka oo kaamil ilaa afuriyay wala 450 waqti iyo diirasa oo geedka way boo dharkii diidan qiibiyahay markaas oo meelahay Ilaahay ku soo ka maadiyana walaalo muslimiinta dalka dibadda Buruuga Soomaali wala hayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaan iyo aakhira ka kala muujiyo bi aakhira la sakar walaalo meelana hadii khayr kale iska maysan wiil la bedel karo waasoo qaal khayriya way wasameeyay saddexaad oo barnaamijku guuliyo laakiin halka sanadku waa koob walaalo meelana hadii iska walba laga bedel karo eediyada ma sidii dhammaan walaalo ay soo in aad maadiyana bulshada aragayay oo faraxsiin insha Allah ta'ala sheekh ya buriijiye la mujid Allah subhanahu wa ta'ala ومن القاضي يوم الخميس السائل يقولون جواب مثل أجل السائل waa markii ugu horeysay tira dad inta la eg hal meel loogu qaybiyo dhar ay ku ciidaan Ciidul Fidriga waxayna tani ku muujinaysaa sida bulshada qaar kamid ah ay ugu dhiiranayaan gacan siinta dadka tabarta daran iyagoo ku xisaabtamaya itaalkooda iyo u qalqaalinta kuwa waxaya ee kara in ay wax bixiyaan isla markaana wax taraan kuwa kale ee liita taasoo meesha ka saari karta in ay jiraan kuwa liita iscaawintuna u noqoto mid socoto oo tabareysata inta bulshada oo dhan isku tiirsanayaan lagana weynayo mid taag daran oo diif la tukubaya iyo danley iyo toban kulley. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, telefishinka raadiyaha dalsan Burshaweyn Baydhabo.